بسم الله الرحمن الرحيم ورصحافدات كلن xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen isla markaana kaga arinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo howlaha ballaaran ee hor yaala iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada golaha shacabka ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaalo mooshin dhameystiran oo ka dhana gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe kaasoo yimid kadib markii uu ku xadgudbay dastuurka dalka xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka iyadoo kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhawaad 3 biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si khilaafsan sharciga si ula kacana loo hakiyay howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka warhelay inuu jiro mooshin ka dhana maadaama mooshin sharci ah oo dhameystiran oo xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ay keeneen in ka badan 3 dalool hal dalool xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya yani waxaan ula jeedaa inay keeneen in ka badan 100 xildhibaan oo u dhiganta tirada guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 65aad faqradiisa afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah haddaba sareynta sharcigu ma aha qodob optional ama khiyaari ah ee waa tiirka ugu muhiimsan ee hagaya hay'adaha qaranka sida ku cad qodobka afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka waajibna ku ah mas'uuliyiinta qaranka inay u hoggaansamaan haddaba waxaan u soo jeedinaynaa guddoonka golaha shacabka inay furaan baarlamaanka oo u xiran muddo ka badan 2 أسبوع أما مدة كله 2 أسبوع وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته